Asalaamu calaykum asxaabta isku soo laabasho wanaagsan. Halkan waxaan kasii gelaynaa koorsadeen oo dhow baryahan waa ka mashquulay. Marka cashirka maanta sharxi doono waxaa loo yaqaanaa sales discount. Markaa saleska sameynaysid qof haddii micnaha discount loo sameeyey qaabkaa discount u sameyn lahayd micnaha lacag yani uga dhimi lahayd haddii 10% ay tahay ama 5% ama lacag caadi oo manual ah $10 $5 wixii uu qofkaas uu mutaystay yani alaabta inta qiimeyn leh. So si discount configuration loo sameeyo waxaa laga sameeyaa discountka applicationka loo yaqaano sales app. Marka sales appka la tagaa settingkiisa meesha waxaa jira lasoo saaraa discount and loyal gift cards. Tusaale ahaan we sold waxaan gadnay vendor waxaa ka gadnay yani vendor wuxuu rabo uu noqon karaa yani electronic dukaamada adiga yani macaamiisha ku customerskaada. Marka waxaa ka gadnay 10 xabo oo keyboard oo $25 halkii xabo uu joogo iyo 10 xabo mouse oo halkii xabo $5 uu joogo. Marka diinaan waa gadnay. So customerska waxaa loo sameyn rabaa discount oo gaaraya $10. Marka isku dar marka lacagtiisa waxay isku noqonayaan $25 lagu dhiftay 10 xabo waa $250. 5 xabo oo mouse oo 10 xabona waa $50 waa $300 lacagta total. Marka discount-kaana laga jari doonaa 290 ay noqon doontaa. Marka aynu sameyno marka waxaan tagaynaa Odoogan. So waxaa soo gashaa qaybta Odoogaada waxaa soo gashaa. So marka waxaan tagaynaa applicationka saleska. Then waxaan ku dhufanaynaa qaybtan configurationka. Then waxaan tagaynaa settingka tagaynaa. Meeshaan waxaa kasoo saaraynaa jegta discount. Marka hadduu jeg kuu saaran meeshaan jegta kasoo saar. Okay wax kale jeg la saaraya ma jiraan save dheh. Inuu soo gala rajaynaynaa. Save. Waa save gareeyay. So marka hadda waxaan tagaynaa qaybtan orderska meelaha meeshaan oo soo galaya productiga discount. I think ma soo galin. Isaga marka qaybtan orderska tag quotation new dheh. Waxaa customer cusub wax ka gadaynaa waa kana discount oo soo galay Afrax Electronics. Marka hadda waxaa ka gadaynaa tusaale ahaan keyboard keyboard 25 xabo quantity meeqay ahayd 25 xabo. Unit price-kiisana wuxuu ahay halkii xabo 25. marka maya unit meeshaan 10 xabo keyboard inay eeda jeclahay 10 xabo keyboard 250 iyo mouse wireless halkii xabo uu ahay qiimihiisa $5 intana 10 xabo ay ahayd 10 xabo 300 ay isku noqotay. Marka customerka waxaa la rabaa in discount loo sameeyo. Hadduu discount ka kharsan yahay meeshaan ku dhufo waa kana anada jigtu ii saaran yahay. Meeshaan waa ka siin karaa oo inta waa gaga dari karaa. Laakiin percentage uu iga noqonaa ma rabo. Waxaa rabaa fixed amount yaa rabaa. Yani lacag anaa rabaa micnaha. Meeshaan ku dhufanay waa kana global discount kan percentage waa 10 boqolkiiba waa. Lacagta oo dhan wax ka reeba 110 laakiin kan waa fixed amount lacag adiga ah sheeganaysa. Soo qaad waxaa dhacday $10 bis $10 laga jari doonaa. $10 laga jari doonaa waatana discount lagu soo daray $10. Price ku noqon doonta lacag 290. Haddii aad percentage rabtidna ada percentage ku darsan karo waxaa dhici kartaa qaybtan globalka all orders iska dheh 10%. Wallahi 10% $10 way kala duwanaan doonaan. laba jeer apply galinaysaa. lacagta oo dhan oo ka wada jaray 10 ujeedado 10 intana 10 uu geliyey meeshaana 10% uu geliyey 10% 90% discount ku dhufo fixed amount 10 okay apply
okay confirm aa leedahay qofkan dalabkan waa laga qaaday so waxaa dhiman in alaabtiisa loo gudbiyo invoicekiisana la dalaco marka I hope inaad wax un ka fahantay qaybtan discountka qaabka loo sameeyo so fadlan channelka noo subscribe gareey muuqaalka noo like gareey waa ku mahadsantahay